dowladda Maali ayaa ku eedeysay Faransiiska inuu ku soo xadgudbay hawadeeda. Arrintan ayaa xumaysay xiriirka u dhaxeeya dalka galbeedka Afrika ku yaalla ee Maali iyo Faransiiska. Warqad uu u diray madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee Maali, Abdallah Diop, ayuu ku sheegay in hawada Maali Faransiisku uu ku soo xadgudbay in ka badan 50 jeer sanadkan aynu ku jirro. inta badan ciidamada Faransiiska ayaa adeegsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, helikabtaro iyo diyaarado dagaal, kuwaas oo inta badan gaafwareega gobolkaas. Xadgudubyadan bareerka ah ee hawada Maali, Faransiiska ayaa la sheegay inuu hub ku taageerayay kooxaha argagixisada ah ee ka howlgala gobolka. xogo kalena waxay sheegayaan inuu hubeynayo jabhad cusub oo ka soo horjeesata dowladda dalka Maali ka talisa. waxaase la yaab noqotay inuu Faransiisku hub ku taageeray kooxaha argagixisada ee la dagaalankooda uu u yimid dalka Maali. Faransiiska ayaa markii laga eriyay dalka Maali wuxuu bilaabay inuu taageero kooxihii argagixisada ahaa ee uu horay ula dagaalami jiray. dowladda Faransiiska ayaa eedeymahaas beenisay. qoraal ay soo saartay oo arrintan uga hadashay ayaa u dhignaa sidan: Faransiisku weligiis ma uusan taageerin si toos ah ama si dadban kooxahan argagixisada ah, kuwaasoo uu weli Faransiisku u arko cadowgooda, waxaana la dagaalankooda nooga baxay dhaqaale fara badan. dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in 53 askari oo Faransiis ah ay kaga dhinteen howlgalkii 9 sano uu ka waday dalka Maali. Faransiiskuna uu dilay boqolaal ka tirsan kooxaha hubaysan si loo sugo ammaanka Maali, ayaa lagu yiri qoraalka jawaabta ah ee Faransiisku soo saaray. Maali ayaa marar badan ku eedeysay Faransiiska inay isku dayayaan inay khalkhal geliyaan xasiloonida dalka, iyagoo soo karaystay kooxo calooshoodu shaqaystayaal ah iyo kooxo ay hubaysay. Faransiiska ayaa saaxiib la ahaa dowladdii hore ee Maali ee la afgembiyey. militariga Maali maamulo waqtigan ayaa ka soo horjeestay joogitaanka ciidamada Faransiiska ee dalka Maali. Faransiiska ayaa soo gabagabeeyay bishii hore joogitaankiisii Maali, wuxuuna dalkaas kala baxay dhammaan ciidamadiisii. wuxuuna Faransiisku soo afmeeray howlgal socday 9 sano oo uu Faransiisku horay ugu sheegay inuu kula dagaalamayay kooxaha argagixisada ah ee Maali iyo gobolkaasba ka howlgala. xukuumadda Maali ayaa sheegtay inay hayaan caddaymo muujinaya in Faransiisku uu hubsiyey kooxo hubaysan, kuwaasoo uu Faransiisku ku kharash gareeyey balaayiin dollar sidii ay uga adkaan lahaayeen, laakiinse weli wax jawaaba kama soo bixin qaramada midoobay. eedeymahan ayaa muujinaya inuu aad u xumaaday xiriirka ka dhexeeya Maali iyo Faransiiska oo dalkaas horay u gumaysan jiray, iyadoo quwadaha reer galbeedku ay muddooyinkii ugu dambeeyey u arkayaan in saamayntoodii ay ku lahaayeen gobolkaasi ay meesha ka sii baxayso kadib markii dowlado badan oo Afrikaan ah ay ka hor yimaadeen Faransiiska. khilaafkan ayaa waxaa sabab u ah 2 arrimood: bulshada dalkaas ku dhaqan oo ka soo horjeesatay joogitaanka ciidamada Faransiiska ee dalkooda, iyo qodobka labaad oo ah cadaadis Faransiisku ku saaray dowladda militariga ee dalka Maali ka talisa inay si degdeg ah ku soo celiso xukunkii rayidka ahaa. madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa ka digay in Ruushku qorsheynayo inuu burburiyo iska caabinta Ukraine ee waqtiga jiilaalka, wuxuuna Ruushku qorsheynayaa ayuu yiri suurtagalnimada hoos u dhac ku yimaada taageerada reer galbeedka ee Kiev sababo la xiriira qiimaha tamarta oo sare u kacay qaaradda Yurub oo dhan. madaxweynaha Ukraine Zelensky oo arrintan ka hadlaya waxa uu yiri: Ruushku wuxuu sameynayaa dadaal kasta oo ku burburinayo iska caabinta Ukraine inta lagu jiro 3 bilood ee jiilaalka. Moscow waxay ku xisaabtamaysaa cimilada jiilaalka in ku soo aadan, sababtoo ah ciidamada Ukraine ayaa bilaabay inay dib u soo celiyaan aagagii bari ee dalka. Ruushka ayaa laga yaabaa inuu bartilmaameedsado weeraro isdaba joog ah oo uu ku ekeeyo shirkadaha tamarta bixiya ee gudaha Ukraine, sida uu sheegay madaxweyne Zelensky. wuxuuna ku baaqay in dalalka reer galbeedku ay Ukraine siiyaan shabakadaha difaaca cirka oo dheeraada. madaxweyne Zelensky oo mar kale arrimahan ka hadlaya waxa uu yiri: Ruushka waxa laga yaabaa inuu si bareera u gooyo gaaska uu siiyay Yurub si uu ugu khasbo dalalka reer galbeedka inay raadiyaan
wadahadallo ay la galaan ruushka. waa inaan isu diyaarinaa jiilaalka wuu ina ku adkaan doonaa dhammaanteen, laga bilaabo Latvia iyo Poland ilaa Britain iyo Maraykanka. waa inaan ka gudubnaa maalmaha adag ee fooda ina ku soo haya. reer galbeedku waa inay ilaashadaan midnimadooda ka dhanka ah ruushka, waana in la dardargeliyo taageerada Ukraine ee dagaalka. taageerada Ukraine ee dagaalku waa inay sii socotaa. waxaan u baahannahay wax la taaban karo, hub, gantaallo, taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed. sida laga soo xigtay mareegaha wararka ee Ukraine, xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony ayaa madaxweyne Zelensky kula taliyey kulankoodii Khamiistii ay Kiev ku yeesheen dib u bilaabidda wadaxaajoodyadii nabadeed ee Moscow iyo Ukraine, taas oo mas'uuliyiinta Ukraine ay si adag u diideen kuna tilmaameen arrintaas ka tanaasulidda dhul ballaaran oo bariga Ukraine ah oo uu Ruushku gacanta ku hayo.